بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنت جرت أن ربنا كهلا وحوي أرن يقود على الشلي برلمان كمان تيجود بيس الحرية حل دمانا قار كمدة فذوبلي هذا الآن يقول أتحقق رئيسي وحلا لقد ودي أرنت والربنا الصحية إن لك أجنبي بنجي لو دي بكرة oo dastuurka mise sharciyada ahaan bangiga u dejigsan inay tahay in loo dhiibi karin ajnabi marka arintaas baa la rabay in la gudbiyo la bedelo oo la keeni karo ajnabi marka anigu xildhibaanada waxaan kala fikir laakiin taan was kugu imaanin oo xildhibaanada ag fadhisan la hadlaan ku dhaay maxaa la igu diidinaa hadlo marka waa dadkana wada hadlayeen anina hadlaa rabay fikrad ka duwan baa haystay aan rabay labada dhinacba inaan ku qanciyo marka buligeena ka hadlinba laakiin arintan waxay leeyahay oo muhiim ah oo haddii go'aan aan ka gaarno dhinac ay say dadka u badnaayeen markii inay tahay wax bedel weyn keenay doonto wadanka oo nafiican marka mid kamid ah xildhibaan kamid ah ba markii arintii la dhamaba la hadlayaba oo gacantaag ba loo sameeynaya gacmaha hala taagala dhahay dadkii gacmaha taagan ugu ma aan taagin aan ka samaamada kala fadhiisaan ku haw waxaan feer ma ahan markaas waxay ku dhahay afka ku hadlaysi waa af ajnabi qofka diidaysa inuu gacantu taagtana waa baasaboorkaaga waa ajnabi markaas waxaan ku iride badana hadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kulliba ajnabi bay wadayeen sababtii saas loo arko laakiin asalkeena Soomaali baan ahna oo dadkeena badi ogsan qana ala kulli xaal taas marda ma ku hadlin hadalkaas markaas waxaan ku dhahay afkeegana waxaan ku hadli karaa boorso yar bay wadatay boorsadii wixii ka soo bixisay mid yar oo pack knife la dhaho jeebka la gashto oo loo yaqaan xildhibaanada markaas inay wado markaas qof markay istagaalaan adigu way soo qabsatay way soo garab istaagtay markaas waxay ku dhahay hadalka dhaad dib ugu soo celin anna waa siyaasad moogta qof walba dhinac hore u aadi kara ma garanay in siyaasad xagga deegal dagaaltamayso am saarin kala gabadhan dhali karto way iska daayo fadhiiso maanta mana marmaysa way iska fadhiisatay markaa kadib waan la fasaxay waan baxnay barankii baadana isku qaad wixii soo baxsato baan iska caangelinay gabar walaashay marka shaqada laga soo qaaday anigu walaashay gaareen naga dhacays iyo driverkayga imaadeen oo marka baakin ku sugaya maxay dhihi jiray arkeen albaabkii laga soo deganaya dagaalka ku bilaabay mugta waxay gabadhu waxay aragtay badan isku shamuumay soo baxday marka taal walaashay meesha lagu soo boday of course qof walaashaada oo qof lagu goobanayo soo orday walaashiis dagaalka inay galayso camal oo kale ayadana way og tahay ma taaban karto xildhibaan oo xilligeedana ma ku shaqo jaamino waxa kale waaba la qabtay markiiba wal xiro dadka inta aniga dagaal ku jiro haba qof dhinac iga jiiday maxaa la dhihi jiray gabadha walaashay markaan weydiiyay xalda wasiirka iyo gabadha maamada la socotay oo xildhibaanada saaxiibadeeda oo ayaduna dhinac iga jiidaysay oo marna iska dhigaysan ay qabanaysa marna dhinac oo labadooda isku jeedo u socdeen ba oo amray in la xirmo ka wasiir iyo xildhibaan bay kala markaan aaday gaarigi ma ay ka xeelay mogtahay gaariga oo meesha waxay ka dhasay baarlamaanka way aragtaa hadda wali ma baantay gaariga inta ay geliyeen gaariga inta oo taga askarigi aan ku dhahay gabadhi walaashay maxaa loo xiraa aniga qof dagaal ka soo baxeen gacanteeda doonay tusra gacmadeena waxay waa calaamaysan tahay xataa askarigi inta soo jiido dalbaacisa iyo soo qabta laga qabta markaas gacanteeda hadda way calaamaysan tahay waxaan ku dhahay wajadi askarigiina inuu rafaadanayo oo laga qabanaynin oo maxaa la dhihi jiray darbaaxinayo ii soo qad inuu igu dhufto laakiin uu igu dhufano waa laga qabtay laakiin he threatened me oo waa dawiye hanjab walaanta adigu inta dhan ma uu si jeedo walaashay muuqato laga xiro wax lagu xirnay ee jirin oo qofka dumisan aniga ah ala kulli xal marka kadib way baxdo saldhiga la geeyay waan u tagnay anigii xildhibaano kale iyo wasiir maadaama xildhibaanka soo damiinta la soo daayay askarigiina waa lagu xiray maadaama maxaa la dhihi jiray macaaradka oo ahaa loo xisaabinayo baa haddana arintii loo sii dowlad waxa laga sii dhigay wax kale oo qof anina macaarad aan weligeey dowlad macaarad maanta ana ko safar u socon oo gudoomiyaha baarlamaanka guddigiisa aan ku jirno oo rabnayna baaldhaba aano ala misaal ka qayb qaadano ba airportka ma garanaya dad baa call sameeyeen oo gabadhii way joogtaa bixi rabtaa ma garanaya xataa bixi kan ma bixi kartaa inta ugu dhahay tartiibtan dib u noqonaynaa kiiska intuu ka dhimaanay bixi kartaa ma safri kartaa la tartiib u noqonaynaa maya waa in la kaxeeyaa waa la soo kaxeeyaa ana qaylanayo dhahay ma kaxeynaysiin wasiir qaylanayo xildhibaan qaylanayo diyaaradii anagu korayna laga baaji oo sababna la ii sheegeen
ولا ما بحي كرتو هاي هدي بحي كرم ولا جوجنا معنا ملا لكن قرينا نكون قنينا ما وين الحراسة اللي قال لك سيدي قالوا الصحيح على كل حال مالك استمر قدامي الله هذا حلوان قفل بخرته وحا هذا gabadhii xildhibaanada oo ayada dagaalkan salgan waa dad aan isku wasaaraha fab laga dhigay markii u tageen dadkii xaqiiqi matalayna isku arkeen wuxuu ugu jawaabay wuxuu dhahay gabadhii way dumsan tahay la soo dumiyo la soo jigeyskan lagu soo xaq asoo aniga storygayga ka warhayn oo loo sheegay hatta dabcan isdhahaya oo ka warhayn already defense mode oo wuxuu galay gabadha inuu protect gareeyo waxa la ii waday aniga maadaama xasaanad loo xiri karin qofka ahelkii ugu soo dhibaa laga gajaraya so aniga waxa lagu cabsi gelinaya aniguna government kan maanta jirto aniga markasta saan u sheegay government aan ka soo horjeedo aniga sharci ahaan waxaan ku soo bartaan mise u ogaan u garanay marka xildhibaan tahay sharci baa dejisa waa sharciga wadanka ma fahantay wixii aad ku dartay waxa ka jirtana waa wax waligiisa soconayso adiga markastaba ay hadii wanaag keentana wanaagiisa qaanis maatade keentana maatisa qaanis wala wadi misila u tahay marka taabaan aaminsanaa taasana xambaarsanaa madaxweynaha wasaarana waa dad oo noo haayo maxaa la dhihi jiray hool noo wado aan anaka u dhiibanay ma fahantay marka hadii arimo ayake ka soo shaqeynay u arkay inay keenayso wadanka wanaag waa dhici kartaa fikirtooda inay u arkeen wanaag inay keenayso ee ka wadan xumaato way dhici kartaa wayna dhici kartaa inay taa qalad tahay oo ka imaan karto dhibaato maadaama wadamo badan baa la soo dhaqmaan soo arkay wadanka sana xumada qaybta ugu muhiimsan qof wadan meesha u dhashay baahayo qof ajnabi wana waa soo wada shaqeysan wadamaha ajnabi waan ka aheen oo waxaan ku aheen qaxooti wadamo kale ku aheen waana ka soo shaqeysan laakiin qaybsa u weyn oo maxaa la dhihi jiray bangigii way ajnabi inuu ka shaqeyn karaa laakiin qofka sare marka saxiix ugu dambeeyo markastaba inuu noqdo qof wadani ah taas aan fikirkeyga marka waxaan ma jiro kiis aniga lagu wada way waxa gabadha loo tarjargalana darteeda waa ma aniga maadaama li arkay inaan ahay qof mucaarad aan la saaxiib ahay dad aniga dawladda ma qasab ma aha inaan la saaxiib wax dawladda la soo u ah hogaam u ah aniga xildhibaanaha dadka kulligood war kii maxaafid ay kii mucaarad kulligood waxaan la saaxiibo dad waxaan dhaxmar karto ganacsi wax baan dhaxmar karto sama laakiin hadii maanta lagu arko qof mucaarad la socdo loo bari waa adiguna mucaaradkii baa tahay wal mucaaradka lagu xina anigu mucaarad iyo dawladda aniga waxaan codsanayaa maxaan horta inay ogaadaan government-ka iyo dawladda maanta jirto inay horta anigu qof ahaan inaan u ahaan atrat saac waa xisaabsan tahay maalmo way wax walba 4 sano 2 sano baa ka dhiman hadii fiican yihiin soo noqon hadii xun yihiin waa lagu kala tagayaa mana ka shaqeeyo dawladda ligeegana ma ka shaqeeynin marka laakiin qof waxaan ahay opinion leh oo hadaan aaminsanahay wax inay qalad waan sheegaa laakiin dawladda waxaan ka codsanayaa arinta hadday u maleeyay inay xal tahay oo xildhibaanahana loo maxaa la dhihi jiray cabsi lagu abuurayo xildhibaano qaarkood ay wax walba u jeedaan iska indhatiraya walaan horta aan waxaan aaminsanahay qadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay wax walba ku dhacdo naftan inay marko aysan waa aamin dadkii soo doorteen oo xildhibaano ah horta inay arin qurux badan inay saas u ogaadaan rabaa inay saas u ogaadaan oo anigana maanta hadda gurigeeyan ku xareysanahay cabsi ka qabay inaan balaan ku baxo maanta askariga inta kaliya yiro igu dhahay oo inta igaliyan waan ka xis wasaaro wadan dan inuu soo gal arin laba dumar saddex martay hadii xataa dawladda aan ka soo jeeday u yeelanaysa xataa oo isku tol ah inuu soo dhaxgalo oo amar buux ka soo bixiyo oo askarigii markii soo la soo xiro oo asagana maadaama degan midif la ah wax sheekada qabiil u bedelo laakiin hal qabiilna istagaashay inuu soo dhaxgalo inta ma ka filinayna wasaaro kadib waxaan u arkaa it's just wax kastan ka filanaya marka kadib ma fahanteen marka waxaan jeclaan lahaa dawladda inta jirto 2 sano sii jirto inay hadday isku day karaan inay wanaag ka shaqeeyaan wanaag ku sii dhameystaan